سدح والحطوشين كوتال الشيخ شريف لقربا سدح والحطوشين كوتال الشيخ شريف لقربا الشرفتي شمتو ايلهد الشيخ شريف لقربا شرفتي شمتو ايلهد الشيخ شريف لقربا شيرين إنو شباب هلا الشيخ شريف لقرب شيرين إنو شباب هلا الشيخ شريف لقرب شيرين إنو شباب هلا شريف لقرب شيرين إنو شباب هلا الشيخ شريف لقرب شيرين إنو شباب هلا الشيخ شريف لقرب الشعبك أولا شوبين الشيخ شريف لقرب شعبك أولا شوبين الشيخ شريف لقرب شعبك أولا شوبين الشيخ شريف تقولي إن السلام حفلتنا قروح بدن لا يدعو أنا كهذا لا يجودي محوها قبل قابضة iyo saaxiibadayba aad baan markasta idin kaga mahad celinaa hawsha wanaagsan aad qabateen war kale badan meesha ma yaal cashadii marka in successfully ku dhamaataan rajaynaya waxa inoo haray kaliya waxa weeyaan inaan ku soo dhaweeyo microphone-ka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Soomaaliya qaabada golaha wasiirada dhammaantiin waa mahadsantihiin cashada wanaagsan iyo soo dhaweynta iyo guubaabada Soomaalinimada aad iyo aad ugu mahadsantihiin sidaas oo kale waxaan rabaa inaan mahad celiyo dawladda Mareykanka soo dhaweynteeda iyo dadaalka ay u gashay ummadda Soomaaliyeed inay gacan siiso gaar ahaan madaxda gobolka oo runtii xamaasad badan muujiyay iyo dareen aad u wanaagsan aan rajaynayo halkaas inay nooga bilaabato saaxiibnimo aad u wanaagsan oo furan aan rajaynayno gobolka Minnesota inuu asaas u noqdo saaxiibnimada Soomaalida iyo Mareykanka runtii farxad weyn ay tahay daal wixii ugu jira waa iga baxeen farxad darteeda waana runtii taageeradooduna waxay noo tahay shidaal xoogan oo insha Allah aan rajaynayno wax badan inaan ku shaqeyno wax badan aan ku qabanno dardaarankeenu wuxuu yahay intii hadda aan qaadaynay oo Soomaaliya tooso haddii intaas kaliya aan fulino waxa la hubaa inaan ka gudbayno xaaladda adag oo anaga aan gacan siino حديث حجر النبي أوليه صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يعني خلق دولك جوجا ونا حريستا وحايدين حريسها يا الله سمد جوجا مركا أمدنا وحي كورة مرتا إسكاشي يعني يسون حريسته قعما إسقابته دتك دباتيسن لتاجره دلك ظروفتي سواء إذا سامعنا ساسيد عن كذا واجني إن لا دالو قعمها لسقبسدو دباتوين كان الله وضح حليو dadka sida gaarka ay dhibaatada ugu dhacday oo aan ka hadalnay oo caruurtoodii ama dhinteen ama la waayayna in aan gacan wada siino dhamaanteen culimada dadaalaysa ee masaajidda ku jirtana runtii dadaal badan ay bixiyaan joodi badan ay bixiyaan laakiin waa lagu soo yani dhexdooda in laga adeegto oo dhibaato la gaarsiiyo masaajidka iyo dadka ka shaqeynaya muuqanaysa marka ayadana si xigmad leh in arinta ayada ah looga wada dadaalo ومساجدك وأكتهين ضد الصوماليات المسلمين تبقين بدنا أوقف فديا علماء الصوماليات وحد أكتهين دال فرق بدنا يودين
waxaana hubaa mushkiladan hadda jirta iyaga cilaaji kara marka inaan gacan siino in aan waxaan oo kala dhicin wixii dhacayna la saxo maxaan ku iraahdaa diintana haddii loo adeegsado ahdaaf siyaasiya weligeeda dhibaata ka imaanaysa maxaa yeelay wixii la rabay ilaahay in loogu dhawaaday ahaayeen iyo ummaddu inay ku gaarto nolol wanaagsan adduunya aakhiro marka runtii waa nasiib darro hadda maanta in wadaad laga cabto la yidhaha asagaa dadka dilaayo nabadii hortaagan laakiin haddana waa waxaan hortaagannahay waan u baahannahay inaan xallino waxaan ku xalli karana waa yacni diinteena si sax aan u qaadano dadka khaldanoo gacmaha aan qabanno culummada oo maxaan ku idhaa aan gacan siino runtii sheekhii hadda halkan iiga horreeyey si wanaagsan uga hadlay waxaan hubaa inuu waxaan u malaynaa shalay waxaan hubaa shalay doodii a'imada masaajidda aan la galay ku jiray marka runtii yani culummada halkan joogta aadan ugu kalsoona inay wax badan ka qaadi karaan laakiin mushkilada haddaan ugu baraarugsanayn khatarteeda ay leedahay hadda wixii ka dambeeyay in arrintaas aad loogu baraarugo aysan ugu soo laabanin xalkeedii aan wada raadino gacan aan ka wada geysano aan ka gudubnaa loo baahan maxaa yeelay annaga laftigeena sumad xumay nagu tahay in nala soo dhaweeyo nala tixgeliyo ammaan nala siiyo dhalasho nala siiyo si walba naloo hagaajiyo markaas kadib haddana annagu aan dalkeenana dhibaato u keenno dalkaana dhibaato ku keenno adduunkana waxaa la socotiin dadku waa inay ilaaliyaan meel kastoo la joogo yacni sharciga iyo kala dambeynta iyo wanaagga meel walba ka jira waa inaan ilaalinaa oo aan xaqiijinaa waddanka aan ku noolnahay in aan la jaan qaadayno waxaan hubaa inaad ka wada dherigsan tihiin keliya waxaan u leeyahay maadaama dhibaatooyin ay dhaceen inaan isku boorino in khaladkaana uusan soo naqanin dadka Soomaaliyeed waxay ogtiin waxyaabaha dhacaya dhibaatada ay u keenayaan dad badan xoolahooda xayiran dad badan ma safri karaan waxyaabahaas oo idinna waxay ka dhalanayaan dadka khaldan oo dhibaatada sameynaya marka qofka khaldan waa inaan farta ku fiiqno aan soo qabanno si aan qof kale aan dhibaato u gaarin cashadan iyo soo dhaweyntii aad ugu mahadsantihiin waxaan rajaynayaa mar kale inaan isku soo laabano iyadoo Soomaaliya arrinteedu xallisan tahay adinkana intaan ka fiican soo wadaagsantiin Thank you.